السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ولا لا يرسو دوادا ما أنت مقالكم وحين كل وذاقيا بوغو مهمسن بوغاك تحصلنا كان عاد قدن لهايدين او علمي أقون قناعسي يو information انت بعد كهلي دونتان وبوغا برشادة يو دقشادة دياغا اي هريرها دول براها اما سيدولك تروبيكول كي كلول وحين اكسونها ولا ليال هيلبك الدياغا إن ودمدا يعني ودمada South America ee koonfurta Mareykanka la inooga soo dhoofiyay Turkiga waxaan kale oo ogsoonahay Yemen in la inooga keeno oo kunta meelo badan oo dalka kamida sanduuqa ama soddonka xabbe ee digaaga oo kuntiisa ah al sawirkiisa halkan ka aragtaan $5 ayaa wadanka laga siiyaa bal maanta ninka digaag kun ah dhaqday dhaqaale intee leeg ayuu soo saari karaa hadaba waxa soo dhan waxa saldhig u ah cilmigana waxa muhiim ah buugan يعني حكت كو رورسن عادي يعني حقيقة ولا تعجبي أي ربنا وربحين كسيو وضد بدن هور إن بدن يسوي دي سكريه بوكن حاجة كهلي كرا بنيد إذن كل وده يقدر مقالكن مركب والله لا يلوحن شلون الله مركب كودنا لايك سارتيد سي وضد بدن وسيجار مقال أنت والله لا يلمركب كني ما عنده بوكن وحاقري إنجنير محمد جوري oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee dhanka cilmiga xoolaha bartay gaar ahaan dhaqashada digaaga injineer Maxamed Guure wuxuu ka qalin jabiyay 1982 jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee Gahayr isagoo mashaariic badan oo jawhar iyo qaybo ka mid ah dalka ka maamulay wasaaradda beerahana la shaqeeyay oo digaaga in badan dalka ka shaqeynayay ayaa haddana wuxuu tababar ugu baxay dalka dibadiisa Holland iyo Ingiriiska iyo wadamo badan oo kala duwan oo markaa uu ka soo maareeyay kana soo maamulay mashaariic large industrial ah oo xagga digaaga dhiqidooda ah haday noqoto kuwa layerka ah ee markaa ukunta loogu talagalay inay soo saaraan iyo kuwa broilerka ah ee markaa hilibka loo barbaariyo hadaba walaalayaal buugan ayuu injineerku ummadda Soomaaliyeed ardayda dadka raba inay digaaga ka ganacsadaan dadka raba inay wuxuun ka dheefaan yani dhanka digaaga ayuu uga sameeyay cilmi aad iyo aad u muhiim ah waa buug walaalayaal ka kooban 17 cutub 17 qaybood ayuu ka kooban yahay qayb kastana waxa ku duwan cilmi iyo koorasyo aad xaqiiqatan ay sooranaysid yani meel adduunka laga helo ma jirto waa buug sharaxaya yani noocyada digaaga la dhaqdo nooca ma artay ukunta dhala ama beedka loo xanaaneeyo oo tusaale ahaan 320 xabo beeda sanadkii ku dhali kara caafimaadka cuntooyinka digaaga la siiyo qaabka digaaga guryaha loogu dhiso qorraxda inta jeer ee loo sii daayo iftiinka loo ay digaaga u baahan yihiin haddii ilaahay ku roon yahay culumta ku qoran buugan waxa kamid ah mashiinada digaaga aad soo iibsanaysid ee beedka lagu kicinayo sida loo joogteeyay inay digaagu markasta ku dhalaan digaaga iscuna sida loo kala ilaaliyo ma artay yani digaaga waxyeelada isu geysan kara waxa tusaalayaal buugu wata sawiro saad aragtaan oo color ah jaldiga adaga ayuu leeyahay dabcan buuga wax kasta qaabka digaaga u dhaqi lahayd oo sawir ah oo itus oo taabsi ah oo cuntooyinka u sameyn lahayd ah oo biyaha inta siin lahayd ah oo xogti oo dhan ayaa Ilaahay kharaasiye cilmigiisana ha u barakeeyo injineerku uu buugan ku koobay dabcan walaalayaal waxaan la soconaa waxyaalaha ugu faa'iidada badan ee kamid ah ganacsiyada wadankeena ka jira la isticmaalo waxa kamid ah ukunta oo shirkado iskaashatooyina magaalooyinada waaweyn ay ka dhisan yihiin oo markaa hadhowto supermarketyada geeya dadka qaarna hadda saan ka arkayay magaalooyinka qaar salada yaryar oo intay gataan ay dukaamada adeeg aad uga socdo ayay ukunta wadani ah ay dhigtaan markaana hadhowto looga sii iibiyo midmid saan la socdo walaalayaal ukunta 30 xabo sanduuq bay Soomaalidu tiraahdaa ama box 30 xabo magaalooyinka badi sida loo badan yahay $5 ayaa la siiyaa ama $5 iyo wax yar magaalada aad joogtid inta laga siiyo hoos igu soo qor 30 xabbe ee ukunta wadaniga inta laga siiyo sanduuqa waan jeclaan lahaa inaan ogaado sidoo kale walaalayaal waxyaalaha in aad ka ugu baahanahay waxa kamid ah
in la helo hilib digaag oo wadani ah oo aan la odhan Brazil baa laga keenay oo aan la odhan Turkey baa laga keenay oo aan la odhan wadanka laga keenay lama garanayo mararka qaarkood Argentina baa xataa la dhahaa baa laga keenay inagu يعني caafimaad darrada ay keenaan talaalada ay qaateen iyo intay jidka ku soo jireen iyo containerada la soo saarayo iyo hawlahooda aad u tiro badan yihiin marka wali bulshada Soomaaliyeed arrimahan hilibka digaaga iyo ukuntoodaba ama beedkoodaba lagama haqabtirin waxaynu ogsoonahay in Yemen xataa laga keeno ukunta ugu badan ee gobolada dhexe ee dalka soo gaadha oo dooma ay keenaan haddaba si ay baahiyada uga baxno dabcan waxaan isleeyahay su'aal kasta oo aad ka qabtay hadday tahay digaaga maxaa la siiyaa hadday tahay cudurro noocyo digaagu yeesha hadday tahay digaaga imisu ku dhala hadday tahay qaabkee looga ganacsadaa hadday tahay digaaga hilibka leh noocyada laga iibsadaa hadday tahay kan ukunta badan dhala magaciisa hadday tahay mashiinada loo isticmaalo digaaga hadday tahay guryaha loo dhiso hadday tahay nafaqooyinkiisa hadday tahay qaabka loo tarmiyo oo ukun uu dib loogu sii digaagu ma artay fertilizer ah qaabka ma artay diiga loogu daro digaagadaha boqolkii xabab waxa lagu darayaa 12 cilmi kasta oo digaag lahaa buugan ayuu ku koobay oo waliba cilmigu maaha cilmi loogu talagalay guud ahaan ummadda oo dhan laakiin waa cilmi dhulka Soomaalidu degto ee kulul ee qorraxdu ku badan tahay loogu talagalay ee tropicalka saad halkan ka aragtaan ee tropicalka marka walaalayaal buugan qofkii u baahan yani ganacsiyada beeraha waxaan ognahay in uu markaa kamid yahay waxyaalaha ugu faa'iidada badan ee dadka ma artay agri businesska maanta qofka ma artay agri businesska ku jira in uu markaa yani digaag dhaqo oo beertii ku dhaqo oo kuntii soo saaro mashiin yar u soo gato in ay waxyaalaha ugu faa'iidada badan kamid tahay hadda walaalayaal qofkii raba inuu buugan helo waxaa laga heli karaa Hargeysa iyo Muqdisho waa laga heli karaa waxaad sameynaysaa lambarkan shaashada ku qoran ama aan commentiga koowaad aan idin soo dhigayo ayaad ka soo dalban kartaan dabcan dad badan waxay ku dhahay buugu ma free ba waxaan ogaa buugan markuu 12 sano ugu dambeeyay injineerku qorayay ayaan ka warhayo saaxiiba ayaan ahayn aniga sakariye ahaana digaagan hadda ka hor soo saaray 4 barnaamij baan ka sameeyay digaaga waxa saldhigaygu ahaa cuntooyinkan siinayay qaabkan u xanaaneynayay qaabkan guriga ugu dhisay wuxuu dhan buugan ka akhristay oo ka tixraacay oo shirkad ba markaa la soo xidhiidhay Sakariyan ku maal gelino yani xaqiiqatan ajaa'ibta ay leedahay marka qofkii raba in uu inaba uu maal gashto oo qalabkiisa gato oo digaagan ma artay ka soo shaqeysto waxaad buugan ka soo dalban kartaa walaalayaal lambarkan halkan ku qoran injineerku Turkiga ayuu hadda nala joogay muddo dheer oo 2 bilooda oo buugan uu ka daabacayay oo jaldigiisa iyo quality-ga uu ka hubinayay cutubyo cusub ayuu ku kordhiyay oo waa soo saaridii labaad saad ka aragtaan waa soo saaridii labaad weeye marka waxaan nidhi Ilaahay khayr badan ha siiyo maadaama buugan aad u anfacay anna waxaan la wadaagayaa asxaabtayda oo dadka raba inay markaa maal gashtaan digaaga inaan anaguna insha Allah la fududeyno qalabkiisii Turkiga aan uga soo iibino hadday tahay cagadihii lagu waraabinayay hadday tahay mashiinadii beedka ama kunta lagu dilaacinayay hadday tahay tooshkii lagu eegayay oo kuntu inay qarxayso iyo in kale oo la kicin karo hadday tahay leedarkii diirimaadka u sameeyay hadday tahay mashiinkii cuntada u shiidayay wixii oo dhan aan qalab ahaana Turkiga ayaan uga haynaa ee qofku u baahnaa inuu mashruuc digaag ku bilaabo marka walaalayaal muuqaalkan maanta waxaan kula wadaagayay buugaad in badan asxaabta arrimaha beeraha iyo ganacsiga xoolaha ama xiisaysa ay soo weydiiyeen ayaan kula wadaagayay lambarkan ayaad ka soo dalban kartaan shaashada ku qoran dabcan waxaad dareemi kartaa maanta kun digaaga qofkiis kale ama kun iyo xoogay oo digaagaasi maalintii mid ukuna u dhalayo waxa ka soo baxaya ilaa 33 sanduuq oo bogas oo ukuntan oo kala ah halkiina midna waa $5 ayaa laga siiyaa suuqa waa $166 kharash ku dhow $5,000 ayuu maanta soo saari karaa ninkii kun digaaga ay u xiraysan tahay dabcan waxaad ogtahay in badan oo biilka reerka uga soo harayso marka qarashaadka laga jaro marka walaalayaal
digaaga talaalkiisa cuntadiisa nafaqooyinkiisa guryihiisa wixii oo dhan bugan ay kugu qoran yihiin aad ka helaysaa insha Allah muuqaalkan muuqaal la mid iyo xogta digaaga inta ku kulmi doono waa walaalkiin Sakariya Cabdullaahi Cali. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.